إسكالي إلهي نمكني إن البرنامج كاسك شقينا أيام هذا إسكالي ليش عن كوبا بالليل العجل نوسو ديبين dad walaalaheena oo qurboyinka jooga dad Mareykan jooga ayaa kamid ah dadka hadaan magacyadooda xuso waa gabar la yiraahdo Jawaahir Axmed Diirshe waxa kale oo kamid ah Shoobar Maxamuud Fartaag oo macallin Axmed Nuur la baxay waxa kale oo kamid ah nin la yiraahdo Mursal Shaqdheere saddexda qofood aan ka xasuusanaa iyo lacag kale oo lagu soo daray lacagta ay soo dhiibay martaa baan ku qaybinay galabta dadka kaamarada ka arki doontaan aan u qaybinay si cadaalad aan u qaybinay badar baan ka bixinay saliid bur iyo sonkor iyo saliid aan ka bixinay dadka meesha aad kaamarada ku arki doonaan u qaybinay waan ka mahad celinayna ilaahay bana mahad iskale deeq inta ka far badan ilaahay siiyo maanta iyo maqaan miisaanka Allah insan intii wax soo dhiibato dhan ilaahay waxaan uga barinay safaqada dunyada faqra aqra min usaliin anoo sidaas aan u qaybinay ilaahay bana markaa uga mahadtay wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan u qaybinay 120 qofood aan u qaybinay raashin ku siinay alxamdulillah allahumma had iskale mana kala gaaro dadka kuna filla waxaasi meel dhawatay raashin kale sidoo kale tabaan bixinay oo lacagta qayb kamid ah faraq kamid ah ay gashay oo ku biirtay waxaan leenahay walaalihiin waa dadka dhibaataysan oo sidaas u dhooban u soo gargaarona soo kaalmay mahadsanti ilaahay baa mahad iskale unaana waxa iskale ummadii waxaan soo dhibtay mahadda koobaadna ilaahay baa iskale waa ducaynaynaa وانا كشكرنا si sharaf leh oo nidaam leh oo farsamo wanaagsan ay nagu soo gaartay waxaan codsanaynaa wixii awood u leh ilaahayna wuxuu dhiibay in noo soo barakeeyaan nagu soo tala galaan annaguna waa ducaynaynaa aqri adduunkana Allah ka liibanaan leenahay farina Allah korshaan leenahay risqooda Allah waasacaan leenahay mudnaana ayaga iskale mahadna ilaahay baa iskale ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambiga isku dhaafo idinkana deeqina Allah barakeeyo صدقان dadkii soo dhiibay oo maxaa tiraahday lagu soo sadaqaystay oo noo soo kaalmeeyay si wanaagsan bay dadkina lagu dhiiban noo siiyeen waan u ducaynay ilaahay qaadirka ah iyo raxmaanka ah horta ilaahay hana aqbal ducadeena Allah aqbal ilaahuna aqbal dadkii noo soo dhiibay khayraadkaas noo soo dhiiban ilaahay waxaan ka baryaynaa risq waasac in Allah siiyo waalidkoodna Allah ha soo shartana Allah ka xijaab khayrkana Allah u furo wixii cunana xigmad shifa leh wixii noo soo qaaday oo noo bixiyana dambigooda iyo dambi waalidkoodna Allah ha ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka sadaqada soo dhiibtay muraadkooda mukabbir deeqooda mal'ato diinkooda naafac deeqooda waasac annagana Allah noo shafeeyo culumadii magaalada dhalinyaro sharaf leh oo culummo ayaguna ah oo waxaas qadimay oo raashinka soo gaday ayaa isugu ragga culummada isugu yeeray odayaashii magaalada waa la keenay culummo diinkii waa la keenay dhalinyaradii gurmadka aheedoo deeqda loo soo dhibana waa la keenay waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo qolada soo dhiibtay xabadii kaliya mooyee dhexdad ku barida ilaahay inuu ka dhigo waxaan u malaynaynaa wixiina soo gaara oo culummada iyo dhalinyarada iyo odayaasha soo gaara farsamay ku dhammaan doonaan wax kasta waxaa lagu maamulayaa sidaas iyo si kasii fiican annaguna waxaan markhaati ka nahay ummadda meesha joogta raashinka loo qaybiyey oo 120 gabdhadood ka kooban oo saliidiisa wata ummadii la siiyey 8 rubac markii loo dhigo baxdo hal rubac ma ay dhamma dadka la siiyey ummadda kalena waa ku raali intaasuna waa qadsan tahay haddii wax bini aadanimada gurmada ay wax sadaqo la baxay haddii la helo buugaasaa u furan waxsan Allah u soo dhiibo wixii loogu duceeyo Allah u aqbalo waxaan mahad celinaynaa deeqdaas galabta halka lagu qaybshay qoladii soo dhiibtay iyo qoladii u soo dhiibeen iyo qoladii keentay iyo qoladii qaybiday intaa mahadaan celinaynaa ilaahay ka amaal mariyo kuwii keenay ilaahay ka amaal mariyo kuwa soo qaadan ilaahay ka amaal mariyo dadka meesha hadda galabta wax loogu baadiyay wax yar maahan inta kale ka yimaadeen waxa hadda jiraana wax nolol hay ku haystaan male wax xoolaana kuma hayaan nolol kalena kuma hayaan dadkaas in loo soo gurmadaan aan haddii la furnayahay aan ka codsanaynaa annaguna wixii aan qaba karno waa inaan haddii la furu qaybinaa wax alla wixii na soo gaara intaasna galabta haddii la kuna waxaan marakanahay in dadkii haddii la kuna wixii aad wax soo dhiibay
waxay soo dhiibeen in la soo gaarsiiyey dadkii mudnaa raashinku waxa waaye 60 kiish oo u dhiganta 120 gadaabood dad waxaa loo qaybiyey intaas labanlaabkeeda raashinkaas wuxuu ka yimid dibaduhu ka yimid dad qaraabo ah ayaa soo dhiibay meesha lagu qaybayana waa baxdo dad qaraaba oo ka nanqaday dhibaatada ka dhacday waddanka ayaa soo dhiibay lacagtaas lacagay soo direen raashinaana lagu bedelay dadkaasaa nasiib alla uga dhigay inta 10keedna waa joogaan oo ama qaxootiya ama dad soo barakacay ama dad xoolahoodii dhammaadeen ama dad masaakiin oo awal magaalada joogay waxaas way isugu jiraan waa un dad masaakiina bacli ka mida waxa la siiyey wax kala gaarana ma ahayn lacagtu intii ay kala gaartaan loo qaybiyey niman dhalinyaro ah qaybiyey oo soo qorsheeyo lacagta loo dhiibay lacagtu 2 jahay ka timid mid America ka timid midna waxay ka timid London iyo Kenya ay ka timid marka lacagtaas dadkii soo dhiibtay waa u ducaynaynaa aakhirana waxay u tagi doonaan iyagoo laban laab ah annaguna waxaan ka marqaatinahay si cadaalada in lagu qaybshay odayaal badanaa jooga culamaa u diin badanaa jooga dad waxaa jooga haddii alla kuura ugaasyaa jooga dad dhalinyaraha jooga meel buqcada oo ka mid ah baxdo meelaha haddii alla kuuran yahay ka mid ah ayaa lagu qaybshay lacagtaas marka waxaan haddii alla kuuran yahay u rajaynaynaa dadkaas soo dhiibay ayadoo licfin ah aakhiro inay ugu tagaan ilaahay idankii annaguna markhaatiyaan ka nahay in la qaybshay wixii kale oo na soo gaarana sidaas ayaan u rajaynaynaa in loo qaybsho haddii alla idmo